gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa si rasmi ah xariga uga jaray qaybta faraha ama dambi baarista ee CID-da taas oo qalab casri ah lagu soo kordhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haajir Cabdulqaadir Nuur ayaa nooga soo warramay Muqdisho. gudoomiyaha maxkamadda sare dalka garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed ayaa xarig ka jaray qaybta farqaadista CID oo qaab elektaroonig ahaan loo bedelay. qalabkan ayaa loogu talagalay in xogaha lagu badbaadiyo oo aysan lumin, shaqadana lagu fududeeyo si macluumaadka qofka oo dhameystiran loogu diiwaangeliyo. gudoomiyaha maxkamadda sare, xeraalyaha guud ee qaranka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo saraakiil sarsare oo ciidanka booliska ka tirsan ayaa goobjoog ahaa, waxaana ay kormeereen qaybta la dhigay qalabkan iyadoo hoggaanka shaqaalaha mas'uuliyiinta u sharxayay ahmiyadda qalabkan. taliye ku-xigeenka hoggaanka baarista CID gaashaanle Daahir Maxamuud Turyare ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda qalabkan cusub. waa system aad ku raaci karto qofka iyo dambiyadiisa marka aad ka hesho faraha ama indhaha ama wejiga, maadaama uu dalkeenu si saa'id ugu baahan yahay. sidaa darteed faa'iidooyinka uu leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qaranka waxaa ka mid ah ugu horeeyo qaybinta iyo xifdinta xogta dambilaha. helidda xogta dambilaha si u dhaqsiyaha badan, laakiin marka ugu horeyso la iskama helayo. qalabku waa qalab mashiin, wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu hirgelinayo qalab sahlaya in dadka ku nool gobolada faraha laga qaadayo oo ay toos ugu dhacayso qalabka yaala xarunta CID. inaanu aalado kale ama qalab kale soo wadno oo isagoo qofka jooga South West ama koonfur galbeed ama Kismaayo jooga ama Galmudug jooga in faraha inta laga qaado isagoo halkaa jooga daatadiisa ay ku soo dhacayso serverka halka noo yaala oo la ogaanayo qofka laga soo diiwaan geliyay dhuusamareeb inuu mataqaanaa halka ay ka muuqato inuu dambiilo yahay in kale. marka hawshaasna waa hawl dhow. xeraalyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda lagu daafuriyay qaybta faraha ee CID oo hab elektaroonig ahaan loo bedelay ayaa sheegay in ay muhiim tahay kaydinta xogta. inta halkan fadhido oo ka tirsan hoggaanka baaristana oo xafiiskayga si dhow ula shaqeeyana taliyaha hortiisa waxaan rabaa inaan ogala dardaarmo inay mas'uuliyad weyn iska saaraan arrinta la xiriirta baarista xogtana ay u kaydiyaan si dhammaystiran oo saxsan oo uusan khalad ku jirin. sababta ay tahay haddii ay naga khaldanto eedeynta qofka loo sameynayo ma saxsanaanaysa haddii xogta qofka ka imaanaysa aysan saxsaneyn. gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa wasaaradda amniga u soo jeediyay in ay awaamiir ka soo saarto dadka degaya hoteelada si looga hortago dambiyada ka dhalan kara. hoteelada ayaa wada degi kara, laba qof oo rag iyo dumar ah ma wada degi karaan hotel? maya. awaamiirta waxyaabaha u baahan in laga soo saaro taasaa ka mid ah. labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qol hotel wada degaan, hoteelku waa inuu weydiiyo shahaadadii nikaax. taa haddii aanu weydiin, hoteelku isaga ayaa qayb ka qaadanaya in la fidiyo fusuqa iyo in dambiyadu inay dhacaan la dhiirigeliyo. marka waxaan ku dardaaraya wasaaradda amniga inay awaamiirtaa soo saaraan. qofna isagoo aan documenti haysan oo la xaqiijin hotel inaanu degi karin, isla markaana laba qof oo kala jinsiya oo aan la xaqiijin inay isqabaan inaanay hotel wada degi karin. Haajir Cabdulqaadir, RTV, Muqdisho.